karo. marka waxaanu ka codsanaynaa oo nu ku xoojinaynaa in maartay qaadka ka imaanaya wadamada dariska aan nahay in si ku meel gaar loo joojiyo maxaa yeelay si fudud ayuu soo raaci karaa qaadka waa waxyaalaha ugu sahlan ee soo raaci karo marka waxa kaloo ugu baaqaynaa dawladda wax kasta oo sababi kara ama duulimaadyada ha ahaadeen wadamada caabuqa oo ku dhacay dadka ka imaanaya ha ahaadeen in maartay taxadar badan laga sameeyo marka dhakhaatiirtu waxay noo sheegayaan markuu qofku taabto meel ilaa muddo 9 beri ah inuu ku noolaanayo fayraskaas inuu ku noolaanayo halkaas marka qaadkana waad ogtihiin gacmaha lagu guraa gacmaha lagu raraa waa la taabtaa marka ilaa inta laga xaqiijinayo waxaan ugu baaqaynaa dawladda in taxadar badan ay ku sameyso lana joojiyo ilaa iyo inta laga xaqiijinayo cudurkaas gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ayaa madaxda ugu sareysa dalka ka codsaday in la joojiyo qaadka ka imaanaya dalalka dariska gaar ahaan Kenya oo laga helay caabuqa coronavirus lana hakiyo qaadka ilaa baaritaan sax ah la sameeyo oo ay ku codsanayaan haddii ay Soomaalida jirto in la hakiyo ama la joojiyo si ku meel gaar ah jaadka ka soo galaya dalalka dariska ah gaar ahaan dalka Kenya oo jaad aad iyo aad u fara badan ka soo galo oo uu saameeyay caabuqan la yiraahdo coronavirus arrinkaas waxaan ka codsanaynaa waxaan ku baraarujinaynaa waxaan ku dhiirigelinaynaa xukuumadda sharafta leh iyo madaxweynaha qaranka in ay tallaabo degdeg ah ka qaadaan oo ay ugu yaraan hakiyaan ilaa iyo inta arrinkan baaris dhab lagu sameynayo iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada